هاي جبرتي ها لينك خابو هاي ونفت بر تان بر واي واقف هالكديغو ايغا بخي ها مسلنا يدخي هاي مسلنا ويمدا ايغا دخي صح تنقل لما أدوغي جبرت خبي ها يا برتي ونفتي واقف أدوغي برتي أو كاسي ونفتي جبرت أسخبا صح ما قصدي تنقل لما جبرت دونكان يقدر شيء aabahan oo 85 jir ah ayaa waxa guriga uu ku noolaa ka soo irisay oo dil u geysatay gabar uu dhalay iyo ninkeeda isagoo ilmeynaya aabahan waayeelka ayaa yiri ninka gabadheeda qaba ayaa madaxa igu dhuftay bir dhiig badan ayaana iga baxay awood aan isaga qabto birtana malihi waxa taas ii dheer gabadheeda meeshii iga celin lahayd ninkeeda iyaduna dhabarka ayay iga garaacday waxa iga soo saareen guriga aan ku noolaa aniguna waxaan ahay naafo waxa ii dheer waayeelnimo maanta halkan ayay igu soo tuureen waa dhacdo xanuun iyo murugo ah aabahan waayeelka ah in dil iyo jirdil loo geysto kadibna wadada lagu soo xooro baash Umar Bilan Radio Nairobi dhacdadan ayaa ah mid geyga Soomaalida ku cusub waana mid dadka Soomaaliyeed ee aad ula fajaceen baash Umar Bilan Radio Nairobi